بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته aad baan idin salaamay dhammaantiin waxaa inoo socday taxanihii aan uga hadlaynay basic forex waxaan maanta aan qaadan doonaa casharkeeni shanaad oo ku saabsan basic forex casharka waxaan uga hadli doonaa understanding forex market sessions inaad u yeelato faham buuxo waqtiyada ama xilliyada suuqa forexku uu shaqeynayo ama uu active ka yahay ay joogaan trader fara badan normally suuqa kan wuxuu furan yahay 5 maalmood asbuuciiba laakiin shanta maalmood inkastoo uu furan yahay haddana wuxuu leeyahay time si toos ah loo furo iyo time la xiro so marka closing ma ahan closing caadiga marketku waa closing laakiin waxaa looga jeedaa traderada badnaa ee active ka ahaa ayaa yaraan doona sidoo kale waxaan fahmi doonaa markaan barno casharkan time zone kala duwan iyo markaan joogno Soomaaliya waqtiga ay uga beegan tahay xilliyada suuqaas uu furan yahay for example suuqyada kala duwan haday noqon lahayd London session Tokyo session marka all that session markaan joogno markaan nahay Soomaaliya maxay uga aadan tahay maadaama Soomaaliya ku taalo East Africa marka GMT ahaan maxaynu ka nahay marka casharkaas aan qaadan doonaa hadii AB oo raali ka noqdo okay qaybtan waxaa markaan aynu ku bilaabeen introduction suuqa forexku wuxuu shaqeeyaa 24 saac 5 maalmood asbuuci laga bilaabo Monday ilaa Friday ayuu shaqeeyaa suuqa kan yani day and night waa open hadii aad furto trade yani tradekaas wuu furmayaa oo yani dhihi maayo waa closed wuu shaqeynayaa okay waxaa marka loo qaybiyaa shantaas maalmood major trading sessions ayaa loo qaybiyaa yani xilliyo ganacsiyeed oo aad u waaweyn ayaa loo qaybiyaa ayadoo marka lagu bees gareynayo xarumaha dhaqaalaha ee adduunka yani suuqyada ugu dhaqaalaha badan ee adduunka waqtiga ay shaqeeyaan oo kale ayadoo lagu bees gareynayo ayaa wuxuu shaqeeyaa suuqa kan okay haddaba ganacsada ahaan ama trader ahaan inaad ogaato marka xilliyada ay shaqeynayaan suuqa kan waa wax adiga marka ku essential ay ku tahay mid muhiim ah as a trader sidoo kale you need to know waxaad kala u baahan tahay inaad ogaato when the forex market opens and closes waqtiga suuqa forexku uu yani furmayo iyo waqtiga uu xirmayo marka lagama wado xirmitaanka saan hore usoo sheegayba sabtida iyo axad ama 48 hours ayuu suuqa kan xirmaa asbuuciiba maalmaha waxaa laga yaabaa in saacadaha qaar isku sigtaan laakiin normally waa 48 hours ayuu xirmaa suuqa kan so marka xilliyada kale aan soo sheegnay ama haddaan arki doono yani suuqa uu noqdo close ama uu noqdo mid low volatile ama low liquidity ah marka waxaa dhaanto inuu xiran yahay oo kale sidoo kale waxaa يعني مهم inaad ogaato the four main trading sessions afarta xilli ee ugu waaweyn ee la ganacsado waxaad kale u baahan tahay inaad ogaato best time to trade waqtiga ugu fiican ee qofku uu geli lahaa trade-ka suuqan wuxuu leeyahay waqtiyo kala duwan waqti suuqu uu xun yahay ay ahayn inaan la gelin ee laga joogo iyo waqti suuqu uu fiican yahay ay tahay in qofka trader-ka uu galo okay waxaan marka aanu baran doonaa major markets suuqyada ugu waaweyn suuqan forex waxaa ugu waaweyn 4 suuq waan baran doonaa wuxuuna leeyahay 3 xilli ayuu ku shaqeeyaa okay waxaan kala baran doonaa waqtiyada ay furmaan sida kaaga muuqato shaxdatan ee sare kaaga muuqanayso Sydney waa suuqa ugu horeeya ee forex-ka furma waqtiga uu furmo waa kan waxaa ku xiga Tokyo wuxuu ku yaalaa Japan Sydney wuxuu ku yaalaa Australia Tokyo waa Japan waqtiga uu furmayo 12 am to 9 am inta ayuu marka shaqeynaya suuqa London suuqa Tokyo waxaa ku xiga London session isaguna wuxuu furmayaa ama uu daarmayaa 8 am ilaa 5 pm waxaa u dambeeya New York session waqtiga New York asagana daarmi doona 1 pm to 10 pm okay marka pm ka tan markii loo fiiriyo anaga as East Africa pm ka waxaan ku darsanaynaa
plus waxaan leenahay plus 3 waqtiga lagu sheego GM-ka markii lagu daro 3 it means waqtiga ay ku beegan tahay xilliga uu yani noo furmayo suuqaas hadda aan duubay klibka kan saacadda Afrika ama saacadda Soomaaliya waxay sheegaysaa 10.28 waa 4 saac baro kale so marka haddii aan rabo suuqa London waxaan leeyahay marka waqtiga uu furmi doono waa 8 laakiin waxaan leeyahay plus 3 taasoo ka dhigan inuu furmi doono 11 marka mar walba saad aad isticmaali doontaa haddii markaas aad rabto inaad fahamto waqtiga ay uga aadan tahay Soomaaliya sidoo kale waxaa kaloo jira websites sida ku muuqda sawirka websites ka caawinaya yani inay ku siiyaan ama ay ku sameeyaan time conversion waqtiga inay kugu bedelaan waqtigaada localka waxaa ka mid oo kale baby pipis iyo my fx book marka ayaga lafkooda waan arki doonaa websiteyadaas inaga caawin doona suuqa ama waqtiga halka marka waxaa ka muuqata shaxda tan waa tii hore aan kusoo sheegnay suuqan Sydney iyo Tokyo iyo London iyo New York sida u kala horeeyaan waxaa kaloo baran doonaa yani waqtiyada ay kulmaan suuqyada qaar haddii ay kulmaan waxaa loo yaqaanaa overlap okay waxaan fiirin doonaa session characteristics sessionada aan soo sheegnay alaha waa iska jiri doontaa hal meel ka soo bood baagan leh waa noron soo okay halka marka waxaan ku aragnay major markets so halkana markii la fiiriyo waa sessionska markii loo aqriyo as session waa 3 session because Sydney iyo Tokyo markii la isku biiriyo waxa loo yaqaanaa Asian session xilligii Asianka ay leedahay London kaliya waxay noqonaysaa European session suuqa New York wuxuu noqonayaa sessionkiisu North America session so marka waxaa marka way noqonaysaa 3 xilli iyo 4 suuq waqtiyada ay darmaan si yani qoto dheer waxaa kaaga caawin kara website kala duwan baby pips iyo my Facebook haddii aad la soo degto application aad soo degsan karto dan waxay ku sahlayaan marka inay kugu configureyaan waqtigaada localka ah si sahlan okay waxaanu marka halkan aan ka soo gaarnay inaan aragno session characteristics session walba ama waqti walba wuxuu leeyahay yani characteristics lagu yaqaano dabeecado uu leeyahay ayaa jira sessionka ugu horeeya waa Sydney iyo Tokyo markii la isku daro oo loo yaqaano Asian session kan naturally waa suuqa ugu horeeya ee furmaya markii la arko liquidity ama uu soo laabto suuqu waa suuqa ugu horeeya furma ama isbuuca bilowgiisa waa suuqa ugu horeeya furmi kara sidoo kale suuqa kan wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano lower volatility-giisu ama dhaqaaqiisu socodkiisu lacagta dhex taala waa mid aad u yar sessionka inta badan markii loo kambagareeyo sessionada kale ee London iyo New York oo kale markii loo kambagareeyo uu ka volatility yar yahay so marka kulama suuqu uu suuqa kale ka volatility yar yahay marka ay ka dhigan tahay uu ka socod yar yahay so marka haddii socodku yar yahayna traderadu ay ku adag tahay markaas ay execution ay ku sameeyaan traders ay qaataan ay ka faa'iidaan oo kale yani walays ku imaanaya okay sessionkan ee Asian loo yaqaano lacagaha marka ku awooda badan ama xooga la saaraa waxay yihiin lacagta JPY ama Japan Yen-ka ayaa u xoogan iyo lacagta loo yaqaano AUD oo ah Australian dollar-ka iyo NZD oo ah iyadana lacagta New Zealand lacagaha marka saddex lacagood ayaa waxay yihiin kuwa yani aad uga shaqeeya oo active ah iyo waliba beerada ay la socdaan sida Euro JPY GBP JPY AUD whatever markaas ay ku jirto paid-kan yani waa lacag markaas yani active ah oo markaa yani suuqeedu uu taagan yahay okay sessionka xiga waa London session waa sessionka reer Europe ama European sessionkan marka wuxuu bilaabmaa isagana uu active soo noqdaa mar alla markuu dhamaanaya Asia sessionka waa sessionka ku soo xigsanayo dabeecadaha lagu yaqaan sessionkan waxa weeyaan waa high liquidity lacagta dhex taala ama dadka buyerska sellerska ah yani waa kuwa aad u sareeya liquidity-giisu marka waa mid aad u fiican
inta badanna suuqa kan wuxuu leeyahay portion ama qayb boqolkiiba 30 trading ka dhex dhaca caalamka boqolkiiba 30 wuxuu dhacaa sessionkan London. lacagaha ugu xoogan markaynu joogno sessionkan London waa saddexdan waa euro waa GBP iyo lacagta loo yaqaano CHF ama Swiss franc loo yiraahdaa. lacagaha marka ay wixii lacagaha ugu xoog badan sidoo kale sessionka markaanu joogno waxaa markaa dhaca important economic news ayaa la soo siidaya yani warbixinada ama newska ka dhex dhaca suuqan wuxuu leeyahay waxyaabo drive gareeya ama wada waxaa ka mid ah kale newska waxa loo yaqaanaa warbixin ama dhacdo ka dhacday adduunka oo kale ama bangiyo madaxdooda oo kale ama madaxweyne dal sida Mareykanka madaxweynihiisa oo kale oo hadlay ama go'aan soo saaro kale ayaa loo yaqaanaa news marka waa inta badan yani waxay leeyihiin ama ay ku leeyihiin saameyn suuqa traderada qaarkood ama intooda badanba yani waxay ku go'aan qaataan newskaas waxaa marka laga yaabaa news soo baxa in suuqa kan ama lacagaha qaarkood yani inuu saameeyo uu yani ka dhigo lacag xoogan oo strong ah taasoo marka saameyn togan ama taban ku yeelan karto lacagtaas gaarka ah. Okay, North America session waa sessionka u dambeeya sessionkan waa New York. The Asian markets have already been closed for several hours. Markuu daarmayo suuqa kan ee North America saacado badan ka hor ayuu soo xirmay sessionkii Asianka laakiin London waxa leeyahay iyagu waxay u tahay halfway half day ay u tahay London yani waxay sii marayaan maalinta kala bar ay u tahay North Americana markaas ayuu soo daarmaya dan meeshan waxaa ka dhacaya traderadii ama suuqii London oo markaas dhex maraya iyo kii New York oo soo daarmaya markay kulmaan waxaa markaa dhacay wax loo yaqaano high volatility yani dhaqaaq ziyaada ah saasradeed sessionka marka wuxuu leeyahay the most volatile period waa waqtiga suuqa ugu dhaqaaqa badan yahay sidoo kale waxaa markaa dhacay wax loo yaqaano overlap yani suuq la kulmay suuq kale ama suuq xilligiisii tradingka uu joogo markuu la kulmo suuq kale ayaa wax loo yaqaanaa overlap. Okay, suuqa kan waxaa u xoogan lacagta USD ee dollarka USD sidaba waa lacagta ugu xoogan suuqan ee forex-ka sidoo kale pairska ayaan kala ah Euro USD GB USD USD JPY ayaa si xoog ah looga talagalaya markaynu joogno sessionkan New York waa sessionka saddexaad soo marka waxaa leedahay Asian session iyo North America London session iyo North America session waa saddexda session iyo afar suuq. Okay, sessionka marka New York waxaa inta badan dhaca economic data impact ayuu leeyahay yani xogo oo news ah oo aad u saameyn badan ayaa dhici kara waqtiyadan oo kale. For example, US economic indicators ayaa dhaca news yiraahdo iyo non-farm payrolls oo ah newska ugu xoogan suuqa forex kaasoo bishiiba hal mar dhaca waxaa loo yaqaanaa NFP iyo newsda kale ee la midka ah sida US Federal Reserve oo kale announcements ayaa dhaca all marka these news waxay marka ay significant ay ku leeyihiin market movement ay sababayaan inuu suuqa inuu ku yimaado dhaqaaq ziyaada ah ay waxay u yihiin sabab. Okay, best time to trade waqtiga ugu habboon ee la ganacsan karo suuqa kan waa xilliga uu jiro overlapka. Overlapping session waxaa jira laba overlap Tokyo iyo London haddii ay kulmaan overlap inkastoo uu yar yahay dhaqaaqiisa laakiin waxaa ugu xoogan uguna fiican London iyo New York markay yani noqdaan overlap waqtigan uu yahay 1 PM ilaa 5 PM oo GMT ah haddii marka anaga aan rabno waxaan leenahay kaliya +3 taasoo ka dhigan 4 to 10 ilaa 1 saac oo kale ay ku beegan tahay waana xilliga markaa yani highest trading volume waa waqtiga yani volumeka uu ugu sareeyo overlapping marka ama suuqa kan markuu sameynayo kulanka
waa suuqa kan yani oo soo daarnaa kii London ayaa soo shaqeynaya oo kale. Waxaa kaloo ku yimid kii America. Dadka marka traderadii joogay London session iyo kuwii joogay US session markay yani ay kulmaan. Halka marka waxaa ka dhalan kara in lacag fara badan la buy gareeyo oo la sell gareeyo la isticmaalo volume fara badan. Halka marka waxaa ka imaanaya dhaqaaq fara badan. Marka dhaqaaqaas markuu taagan yahay waa the best time ee la sameeyo trade. Laakiin haddii dadku ay kala tagaan oo kale suuqyada qaar ay xirmaan waxaa marka yaraanaya dhaqaaqa. Haddii dhaqaaq uu yaraadana lacagtii aad gadato yani faa'iido badan ma keeni doonto. Okay. Marka saad u ogaato waqtiyada kala duwan ama xirnaanshaha suuqa la leeyahay waxaa jira suuqyada waxyaabaha ay ku programming waxaa kamid oo kale waxa loo yaqaano DST oo ah daylight saving time. Daylight saving time marka wadamadu way ku kala duwan yihiin. Yani markii la suuqan uu xirmaya waxaa loola jeedaa yani suuq walba waxaa lagu base gareeyay maalintiisa shaqo. For example markaanu joogno Tokyo waxay leedahay daylight saving time u gaar ah. London sidoo kale waxay leedahay daylight saving time. So marka this daylight wuxuu marka uu ka caawinayaa suuqa ama uu ku base gareysan yahay dadka meesha joogo ama zoonkaas joogo waqtigooda shaqo ayaa waxaa lagu base gareeyay iyo saacadii iyo suuqa isku base gareysan yihiin. Haddii marka waqtiga la dhaafo waxay ka dhigan tahay traderadii marka inay sii trade gareyn doonin then ay aadi doonaan hawlahooda ama inay seexan doonaan oo kale ay marka ay ka dhigan tahay. Daylight saving time marka wadamada Africa inta badan kuma save gareysan ma lahan markii laga reebo wadanka Morocco bes. Laakiin inta kale ee Africa lama isticmaalo. Maadaama marka suuqa forex uu yahay global ah kana shaqeeya across different time zones ayuu ka shaqeeyaa. Tan marka waxaa marka dhacaysa in la isticmaalo daylight saving time maadaama suuqa uu ka shaqeynayo different time zones. Ilaa adduunku wuxuu leeyahay in ku dhow 24 time zones. So marka these 24 time zones wuxuu marka suuqa kan u baahan yahay in qofku uu fahmo time zone-ka asaga uu kaga cadan yahay. Arrinkan marka waxay u dhacaysaa si loo facilitate gareeyo ganacsiga across the different time zones. So marka qof walba marka wuxuu ku khasbanaanaa meesha uu joogo in time zone-kiisa uu kugu apply gareeyo time zone-ka yaala suuqaas. Waayo suuqa wuxuu isticmaalaa time zone loo yaqaano UTC ama Coordinated Universal Time oo UTC ama GMT oo aydan laga wado Greenwich Mean Time. So marka Greenwich iyo UTC inta badan waa isku mid. Kaliya hadda waxaa aad loo isticmaalaa UTC. GMT-na laftiga waa la isticmaalaa waana standard reference oo standard ah ay ka dhigan yihiin labada kuwan GMT iyo UTC-da waxayna standard u yihiin waqtiga iyo saacadda adduunka. Inta badan waqtiga waxaa dhacaysa in mararka qaar saan ognahay daylight-ku marna maalinta ayaa dheeraanaysa marna habeenka ayaa dheeraanaya. Laakiin waxay sameeyaan qolooyinkan in saacadda si manual mar walba hal saac ama loo hormariyo ama loo dibdhigo iyadoo la fiirinayo daylight saving time-ka. Okay. Laakiin suuqa forex-ku isagu wuxuu u shaqeeyaa si continuous ah yani suuq istaagmahan uu furan yahay 5 maalmood. Laakiin ciladu waxay ka qabsan kartaa marka haddii daylight saving time-kii la gaaro uu dhaafo suuqa uu xirmo uu yahay close waxaa loola jeedaa ma jirto liquidity fara badan ma jiro volatility fara badan volume-ku uu yahay saasdaraadeed dhaqaaq ma lahan. Lacagta aad buy gareyso ama sell gareyso haddii marka counterparty-gii la waayo ama uu yaraado kale then halka marka suuqu inta badan wuxuu noqon doonaa mid ah range yani korna aan aadin hoos aan aadin. Waxaa marka lagu leeyahay you can make money lacag waa sameyn kartaa markaad yani aad trade gareynayso suuqa kan markuu aadayo up. Sidoo kale waxaad sameyn kartaa lacag markuu suuqu uu soo aado down. taasoo ka dhigan haddii lacagta aad dhahdo buyna waad ku faa'iidi kartaa oo suuqu uu kor aado. Haddii sell aad dhahdana waad faa'iidi kartaa oo suuqu soo aadi doona hoos. Laakiin ka war haddii aad lacag aad gasho korna uusan aadin hoos ayna soo aadin maxaa marka dhici kara? Waxaa dhici kara yani inay adkaato lacagna soo saarto. Marka xilligaasna waa xilliga uu weerahay volatility. Marka as a trader waa very important inaad ogaato
suuqa kan markaan nahay Soomaali goormee yani dadka kan suuqa ka shaqeysta ay active yihiin ay shaqeystaan oo kale inaad isku aadiso that session was very important. So marka in order for the market to move suuqa marka si uu u dhaqaaqo wuxuu u baahan yahay in la geliyo lots of trades in laga exactly gareeyo ayuu rabaa. Marka that is the why aad ugu khasbantahay inaad focus ka saarto yani an specific trading sessions xilli ganacsiyeed oo yani gaar ah inaad xooga saarto waad ku khasbantahay. For example tusaalada markaan joogno Soomaaliya kale waxaa jira Soomahan magaalooyinka qaar maalmo la isku yimaado oo ganacsi u dhaco kale. For example suuqa xoolaha yani waxaa jiro magaalooyin kala duwan sida Jowhar oo kale Balcad Afgooy inta aan garan karo yani waxay leeyihiin maalmo la isugu yimaado oo suuqa Balcad oo kale waa Isniintii maalin Isniinta la isugu yimaadaan waxa ka dhaca suuqa Afgooy ay hob inay yihiin Sabti mise Arbaco something like that. So marka maalinta marka iyada ah way ka socod badan tahay way ka dhaqaaq badan tahay way ka iibsi iyo gaasho badan tahay maalmaha kale maxay tahay sababta yani waa maalin la isku yimid. So marka si lamid ah marka these trading sessions kan yani markay suuqyada kan ay isku yimaadeen dadka buyerska iyo sellerska ah way marka ay ka dhigan tahay halkaas waxa ka dhalan kara dhaqaaq as a trader ina marka aad fahanto xilligaas xilliga ay ku beegan tahay isku aadiso aad trade gareyso waa very important. adigoo setup uu ku saxan yahay waxa laga yaabaa in time-ka inuu kugu adkeeyo yani aad suuqa soo gasho time markaas uusan jirin trade fara badan. Marka waxaan arki doonaa website-yada inaga caawin doona xilliyada ama inuu bedeli doona. Okay. suuqa marka waxaa lagu base gareeyay local weekday yani local weekday waxa loola jeedaa suuqa isaga yani dadka markaa meesha jooga local ahaan weekday-gooda ayaa lagu base gareeyay. Marka adna waxaad ku khasbantahay marka in caasimada lagu base gareeyay inaad time zone-ka isku aadiso waxaana kaa caawin doona website-yada soo socda. waxaad marka inoo furan babybabies.com ayaan soo galnay. markaad soo gasho babies.com waxaad si live aad u arki kartaa suuqii laga soo tagay ee soo xirmay iyo midka hadda markaas taagan ee daaran. marka wuxuu kugu bedelayaa waqtiga adigu aad joogto iyo waddanka aad joogto. halkan waxaa igu qoran saacadda ay marayso hadda waqtiga iyo maalinta ay tahay. halkan waa suuqyadii kan suuqa waa Sydney uu soo dhamaaday hadda kan waa Tokyo uu soo dhamaaday. hadda waxaan joognaa waqtiga aan duubay videohan waa London. waxaan ku sii soconaa new session. soo marka qaabkaas uu kaaga caawin doonaa ama waxaad iman kartaa waxa loo yaqaano my FX book. markaad timaado isaguna waa lamid my FX book wuxuu ku siinaa marka suuqi halkan way farbadin laakiin adigu waxaad ka rabtaa kaliya suuqa New York London halka ka raad Tokyo that's it. marka labada shay ayaa ka caawin doona haddii in case uu ka khaldamo halka ayaa ka saxan kartaa GMT-ga halkaas hadda covered ayuu noo saaran yahay halka aad yani ka toosan kartaa. okay marka waa very important inaad fahmi kartid waqtiga suuqa kan yani uu dhacayo xilliyada overlap-ka ah xariijintan halka markay ku soo aado kale yani wuxuu isku calaamadinayaa suuqa London iyo New York. halkan waxaa kaloo laga yaabaa halka inuu ka siiyo kale indicator markuu saaray green kan oo kale yani wuxuu ula jeedaa waa volume-ku waa high. haddii uu high ahayn halkan uu keeni doona waa dhexdhexaad ama waa low ayuu ku dhihi doonaa. marka qaabkaas u soo cabiri doonaa halkaas kala soco. halkaas aan ku soo afmeeraynaa casharkeennii ahaa aan uga hadlaynay forex ama understanding forex market session. fahamka guud ee aad uga baahan tahay xilliyada laga ganacsado suuqa kan waa very important waxaana kaa caawin kara website-yada aan idinla wadaago halkaas kala socdo. aad mahadsantihiin.